hay'adda maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland ayaa tababar u furtay agaasimayaasha waaxaha qorsheynta ee wasaaradaha iyo laamaha dawliga ah ee dalka. Tababarkani oo ku saabsanaa habka cusub ee komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa u mari doono la xisaabtanka hay'adaha dawliga ah ee heer qaran. Kulankan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta sarsare ee hay'addaasi oo uu horkacayo gudoomiyaha hay'addaasi Axmed Jaamac Maxamuud oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee hay'addaasi. Sidoo kalena ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland oo isagu sharaxaad ka bixiyay sababaha keenay kulankan isdaba joogga ah ay maalmihii u dambeysay hay'addu la yeelanaysay mas'uuliyiinta wasaaradaha iyo laamaha dawladda. Riboortada noo soo baxay runtii waxay ahaayeen marka dee la cabiro scale-ka ama la cabiro darajada maamul wanaag aad baynu uga hooseynay standardkii caalamka maadaama ay taas noo soo baxday waaxdiinu waxay tahay halbowlaha wasaaradaha ama hay'adaha dalka. waaxdani shaqadeedii runtii sidii loogu talagalay ama standardkii saxda ahayd wasaaradaha dhexdeeda active ma ahayn. way jiraan magacii wuu jiraa. waxaan filayaa waaxdan 2005kii ayaa wareegta madaxweyne lagu soo saaray 2007kii ayaa wareegta madaxweyne lagu soo saaray. micnaha loo soo saarayna dee baahida loo qabay bay ahayd. baahida inagoo ka turjumayna dee maamulku qaranku inuu toosnaado. habraacan cusub ee aanu imika bilownay shalay waxaa idinka horreeyey agaasimayaashii waaxyaha admin finance-ka ama maamulkiiyo lacagta idinkaa ku xigay oo nasiib u yeeshay. marka waaxdan waxaan ugu talagalnay runtii maadaama ay halbowlo qaran tahay oo qorshe la'aani haddaan qorshe jirin dee waxba ma socdaan mana hirgalaan. marka maadaama waaxdan runtii iyadoo skeleton ah ama magacii u jiro laakiin shaqadeedii aad moodo in cid kale runtii ay ku foogan tahay ama ay hayso. waaxdan waxaanu jecelnahay markaa inay roolkii ay qaranka ku lahayd runtii aanu dardargelinno. geesta kale waxaa hadalka isu daba maray wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Injineer Xuseen Ibraahim Buuni. albeegaas wuxuu hadhow noqonayaa wax lagu qiyaaso fulintii ma waxa jira variation ma laga badiyay mise waa laga yareeyay. okay haddii laga gaabiyay sidee loo sixi karaa maxaa lagu dari karaa. qorsheyntuna ma aha in marka hore la sameeyo waxa kamid ah qorsheynta in marka socoto fulinta laftigeedu qorsheynta la bedelo oo iterative plan laftigiisu uu soo galo. marka hawl weyn baad haysaan waadin baleynaya hay'addan aad baan baleynaya wasaaraddu waxay diyaar u tahay waxa tiimkii wasaaraddu ay ku hawlan yihiin waxaanu iminka gacanta ku haynaa idinku ka wada dharagsantihiin oo idin ka soo wada qayb qaadateen qorshayaashii 5 sanadood ku salaysnaa markaynu sanad la u kala jajabinay. waxaynu iminkana gacanta ku haynaa oo gabagaba oo naga dhadhow mudnaansiinta qorshayaasha horumarineed ee wasaaradaha iyo hay'adaha dalku ay leeyihiin. waxaad ka dharagsantihiin in wasaaraddu gobolladoo dhan ay soo martay halkana idinku ay idin lead ka ahaydeen cidii hawsha waday. marka runtii qorshayaasha aynu leenahay haddii aynaan ka wada shaqayn sidaynu uga wada midhadhalin lahayn wasaaradda qorsheyntu dee platformkii unbay ay diyaarinaysaa laakiin cidda hirgelinaysa ee fulinaysa waa idinka weeyaan. teedhi fishankii aynu lahayn ama higsigii aynu lahayn aynu gaadhno. marka runtii waan idinku bogaadinaya hawlaha aydun haysaan oo aan dareemi karno caddiga iyo miisaanka ay leeyihiin. waxay idintiin dad runtii shaqada ay qabanayaan aqoon ay ku salaysan tahay. Cabdiqani Xuseen Abukar Cabdiqani Baylood Bulsha TV Hargeysa.